war degdeg ah xanuun degdeg ah oo ku soo booday madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciro xilli aqoonsigii ay kala laabatay Israa'iil. Wararkii ugu dambeeyay ayaan doonayaa inaan halkan idinkula wadaago, balse intaan u gudagalin xogahaasi oo dhammaystiran waxaan kaa codsanayaa daawade inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena YouTube-keena subscribe saarato si aad u hesho wararkii warbixinada aan halkan ku baahino. Waa tahay warar soo taraya ayaa sheegaya in madaxweynaha Somaliland uu wajahayo xanuun halis ah kadib markii xaaladiisa caafimaad si lama filaan ah isu beddeshay saacadihii la soo dhaafay. Ilo ku dhow madaxtooyada maamulkaasi ayaa xaqiijinaya in madaxweynuhu lagu sameeyay daryeel caafimaad oo degdeg ah, isla markaana lagu hayo kormeer gaar ah isbitaalka ku yaal gudaha magaaladaasi Hargeysa. Ilaa hadda warar rasmi ah kama soo bixin ama faahfaahin rasmi ah lagama helin xanuunkiisa waxa uu yahay. Sidoo kale wararku waxay sheegayaan in ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ka baxay heshiiskii iyo ballanqaadyadii uu la galay madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro, taasoo sababtay in xanuun lama filaan uu ku soo boodo madaxweynaha maamulkaasi Somaliland. Sida wararku sheegayaan, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa lagu soo waramayaa inuu ka baxay ballanqaadkii iyo hadaladii la xiriiray aqoonsiga Somaliland, arrintaas oo dhalisay jahwareer iyo xanuun degdeg ah oo ku soo booday madaxweynaha maamulkaasi Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciro. Warar diblomaasiyadeed ayaa tilmaamaya in Israa'iil ay dib u qiimeyneyso xiriirka Geeska Afrika iyo midnimada Soomaaliya, iyadoona ka laabatay aqoonsigii ay ku dhawaaqday kol hore bishii ayna dhaaftay ee December dabayaaqadeeda, iyadoona waqtigaasi Somaliland ku sheegtay inay tahay dal madax bannaan. Intaasi kadib, Cabdiraxmaan Ciro waxaa la soo wariyay in xaalad degdeg ah loola cararay isbitaal ku yaal gudaha magaaladaasi Hargeysa, lamana xaqiijin karo xanuunkaasi waxa uu yahay, balse wararka hordhaca aan helin waxa ay sheegayaan in uu ka naxay kalaabashadii Israa'iil ay ka noqotay aqoonsi beenaadkii ay dhowaan u sameysay, iyadoona hadda wararku ay sheegayaan in Israa'iil ay ku dhawaaqday inay ilaaliso midnimada iyo madax bannaanida dhuleed ee Soomaaliya, iyadoona maamulka Somaliland u aqoonsatay maamul ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana hoostaga. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa inuu gaaro magaalada Laascaanood si uu beesha caalamka uga xaqiijiyo in maamulkaasi uu ka tirsan yahay dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana uu hoostago dowladdiisa.